السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى هانتين بخيارته هو ذا نقدر عنا يساي هالكن ومريج ميديا. هذا بدو وركان وجود دور كورونا وحى كمده سفير في ذلك السودان وفدي إثيوبيا أو عاوز قاري مجال خرطوم. سرجال سريع وكترسن دولة إثيوبيا وسعودية الكمرية ذلك تركيا واللي إحنا يسجل جسدي كمن نقاشة أورور كناتو. qaramada midoobay oo ka soo saaray war cusub doorashada dalka Soomaaliya labadii madaxweyne ee hore ee dalka Soomaaliya oo dagay guri ka soo horjeeda xarunta madaxtooyada ee dalka Soomaaliya midowga Afrika oo u diray wufuud dhexdhexaadisa dalka Itoobiya iyo Suudaan oo gaaray Khartoum maanta dalka Ingiriiska oo soo saaray baaq ay وديجيان دلكاس إلتريا إن يكبحان جبيهانبا دلكاس إثيوبيا قضبة آسيا قضبة كلو ديرا البرنامج كان يكون مغلي دونتان هذه برالي يكون نقضو isku soo noqdo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo aan ku bilaabay dalka Suudaan ayaa shalay uun ahayd markii ay u yeedheen safiirkooda ku sugan dalkaasi Itoobiya arrintan ayaa la xiriirda khilaafka u dhaxeeya labadaasi dal ee ka bilowday xuduudda ay isku hayaan ee baryihii dambaba ama waayihii dambaba ay dagaaladu ka socdeen safiirka dalka Suudaan ayaa soo gaaray caawa magaalada Khartoum asagoo halkaasi ka soo degay garoonka caalamiga ee magaaladaasi Khartoum arrintan ayaa waxay la xiriirdaa khilaafka labada dal u dhaxeeya oo baryahanba cirka isku sii shareerayay dawladda Suudaan ayaa gabi ahaanba waxay ballan qaaday in Ethiopia ilaa waqti dambe uusan xiriir hadda dhex maraynin sida la aligeena waxay u yeedheen safiirkooda halkaasi ku sugnaa dhanka kale dawladda Ethiopia safiirka u jooga dalka Suudaan wali ma aysan qaadanin balse waxay ku tusaysaa arrintaasi in Ethiopia ay ka cadajiidayso dagaalka u dhaxeeya dawladda Suudaan iyo dawladdaasi Ethiopia arintani ayay beesha caalamku ka muujiyeen walaac weyn oo ay ku tilmaameen inay tahay colaad culus ama weyn oo halkaasi ka soo muuqata hadii aan la kala gaarin labada wadan midowga Afrika ayaa u diray wafdi ballaaran oo gaaray iyaguna maanta magaaladaasi Khartoum oo la rabo inay dhexdhexaadiyaan hadii ay baraali ka noqdo khilaafka u dhaxeeya labadaasi dal oo la rabo inay ay waan dhexdhigaan labada dal arintani dawladda Suudaan way soo dhaweeyeen maadaama wafdidani ay ka soo dageen magaaladaasi Khartoum ay halkaas ku soo horeeyeen waxaana ay sheegtay dawladda Suudaan inay wada hadal diyaar u tahay balse aysan gargoortan ka galaynin dhulka kaga maqan gobolkaasi Axmaarada wadalkaasi Itoobiya dhanka kale dawladda Itoobiya sargaal sare oo ka socda ayaa waxa uu booqasho ku jooga magaalada Ankara ee dalkaasi Turkiga isagoo la kulmay mas'uuliyiin sarsare ee dalkaasi Turkiga u qaabilsan arrimaha dibadda sargaalkani waxa uu sheegay in uu ka codsanayo dawladdaasi Turkiga inay qayb ka noqoto waawaanta iyo nabad abuurida labada dal waa ee colaadu hadda hareysay waa Suudaan iyo dalkaasi Itoobiya sargaalkani waxa uu sheegay oo warbixin ka bixiyay xuduudka labada dal ay wadaagaan waxaana uu ku sheegay in xuduudkoodu uu dhan yahay dhererkiisu in ka badan 1600 kilomitir waxa sidoo kale uu sheegay dibka meesha uu ka taagan yahay inuu gobolka yahay fashaqa la yiraahdo taasina uu ku sheegay inuu yahay dhul kamid ah dhulkaasi Ethiopia arrintaasina ay dawladda Suudaan ay soo gacmo gelisay gudaha dalkaasi Ethiopia sargaalkani ayaa sheegay in dawladda Turkiga ay arintani qayb weyn ka noqoto ayna awoodo inay dhexdhexaadiso labadaasi dal colaadana sidii looga hortagi lahaa laga wada shaqeeyo sargaalkani waxa uu sheegay dawladda Turkiga inay xiriir wanaagsan leeyihiin gabi ahaanba wadamada dariska sida Soomaaliya iyo Eritrea Djibouti iyo dalka Kenya oo magacaabay wadamadaasi waxa uu sheegay in dalkani Suudaan sidoo kale ay dal wanaagsan oo daris ay ahaayeen balse waqtiyadii dambeeyay ay soo korodhay colaad halkaasi ka bilaabatay dhul la isku haysto oo ay sheeganayso dawladdaasi Suudaan inuu kaga maqan yahay dalkaasi Itoobiya waxa uu sargaalkani sheegay in dhulkani u baahan yahay in beesha caalamku soo fargeliso khaasatan dalkan Turkiga oo uu ku sheegay inay saaxiib dhow yihiin dawladda Itoobiya inay qayb weyn ka qaataan arrintaasi dawladda Turkiguna waa ay soo dhaweysay waxaana ballan qaaday inay isku dayayso waantaasi in ay ku soo afjaraan nabad iyo rayn iyo labada dal oo heshiis ku noqda
dhanka iyo haddaanu leexano dowladda turkiga oo qeyb ka ahayd in ka badan 69 sano xisbiga ama ururka loo yaqaano neto ee lagu midoobay ayaa waxa ay hambalyo u direen xisbiga neto saraakiil u hadlay dalkaasi turkiga, waxaana ay sheegeen oo yidhaahdeen neto in badan baanu qeyb ka ahayn balse ma aysan muujinin taageeraha intii aan rubnay 100%. sargaalkan dalka turkiga u hadlay ayaa sheegay in dalka turkiga uu ku jiro colaado la xidhiidha dhinaca argagixisada iyo wadamada dariska sida Syria. waxa uu sargaalkan sheegay in ay neto mar walba gacan bidixayso dalkaasi turkiga aysan waqti ku bixinin sida wadamada kale ee qeybta ka xisbiga ama ururka neto. sargaalkani waxa uu yiri waxaa loo baahan yahay dalka turkigu maadaama uu dal awood badan oo xoog leh uu yahay lana dagaalamo ururada argagixisada in xisbiga ama ururka neto ee qeybta ka nahay in ay nagu taageeraan sida wadamada kale ay ugu taageeraan waqtina ay ku bixiyaan. turkigu waxa weeye waa dal aad u horumaray dhaqaala iyo sanad military labadaba sida la socotaan caalamkuna uu indhaha ku hayo. dhawaan bay ahayd markii dalka Mareykanka iyo dalka Ruushkuba ay ku eedeeyeen turkigu inuu ku socdo xawaare dheereeya oo la xidhiidha qeybta militariga iyo horumarinta technology-ga ee dhanka sanada military. sidoo kale dalka Mareykanka ayaa 2009 waxa ay ka mamnuuceen inay ka gadaan hubkooda iyo wax soo saarkooda dalkaas Mareykanka inay ka iibiyaan dalka turkiga qeybaha la xidhiidha dhinaca militariga, balse waxay taasi u egtahay dalka turkiga inuu ka maarmay oo uu ku kacayo xawaare ka dheereeya kuwa ay ku kacayaan wadamada caalamka ugu horeeya. dalka turkiga wuxuu soo saaray doon dheereysa oo mareysa badda hoosteeda aan cid wadaana jirtin oo laga hagayo qeybaha satellite-ka. arrintaasi ayaa ku noqotay dhakafaar dadka qiimeeya arrimaha la xidhiidha wax soo saarka technology-ga. dhanka iyo Soomaaliya haddaanu leexanana qaramada midoobay ayaa ka soo saartay baaq la xidhiidha arrimaha cakiran ee doorashada dalka Soomaaliya. sargaal sare oo hadlay qaramada midoobay oo u qaabilsan qeybaha amniga oo lagu magacaabo Rosemary DiCarlo ayaa sheegtay inay aad uga walaacsan tahay arrinta la xidhiidha doorashada dalka Soomaaliya ee cakiran ee waqtigan xaaliga uu ku sugan yahay waddankaasi. sargaalkani qaramada midoobay oo hadlay ayaa sheegay doorashadu inay ahayd in waqtigeedii la qabto loogu talagalay balse ay dhici weyday, arrintaasina ay ka dambeysay khilaaf xoogan oo u dhexeeyay siyaasiyiinta Soomaaliya. qaramada midoobay waxay sheegeen in aysan Soomaaliya u baahnayn mar labaad iyo mar saddexaad inay dib ugu laabato dagaalkii sokeeye iyo colaadihii horeeyay. sargaalkan iyo hadalkiisa sii watay ayaa waxa uu sheegay in siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay isu yimaadaan sida ugu dhaqsaha badan xal waarana lagu gaadho sidii doorasho loo qaban lahaa loo dhan yahay oo ummadda Soomaaliyeed u dhan tahay. waxa ay tidhi oo kale Soomaaliya ma ay tawana colaad iyo sokeeye isdila in badan bay kusoo jirtay, balse maanta lama filaynin Soomaaliya in ay rajadeedu noqoto mid gud kusii dhacaysa. sidan hore bay idinku sheegay xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya iyo Shariif Sheekh Axmed oo ahaa madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya iyo xildhibaano ka tirsan ama ka soo jeeda sida la sheegayo waqooyi oo hormuud yahay Cabdi Xaashi ayaa la sheegayaa inay degeen hotel ka soo horjeeda xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya. hotelkan oo la oran jiray Naasah Blood haddana la yiraahdo Maida ayay ku sugan yihiin mas'uuliyiintani. hotelkaasi waxaa la sheegayaa in gabi ahaanba amnigiisa ay la wareegeen labadan mas'uul ee madaxweynayaashii hore ee dalka Soomaaliya inay hotelkaasi ilaaladoodu ay gacanta ku hayaan. waxaa la arkayaa baabuur gaashaaman iyo ciidamo dul wareegaya hotelkaasi. madaxdani ayaa sheegay inay u soo dhawaadeen halkaasi iyagoo raba inay qeyb ka noqdaan banaanbaxa la iclaamiyay inuu berri dhaco oo Jimcaha ka dhaca dalka Soomaaliya khaasatan magaalada Muqdisho. musharaxiinta Soomaaliyeed ee labada madaxweyne ee hore ay hormuudka u yihiin ayaa sheegay inay ballan qaadeen inay berri dhacayso banaanbaxaasi cid hor istaagi kartaasi aysan jirin, balse dowladda Soomaaliya arrintaasi waa ay ku gacan saydhay waxaana sheegtay inaysan suurtagelaynin inay ka dhacdo caasimadda dalka isu soo baxyo la isugu yimaado.
arrintani ayaa labada dhinacba ay ku hanjabayaan tallaabada ay qaadi doonaan, balkiin berri waxaa ka hadhay saacado kooban. Sidoo kale safaaradda Mareykanka ayaa uga digtay shaqaalaheeda iyo muwaadiniinteeda ku sugan caasimadda Muqdisho inay berri u soo baxaan magaalada, waxaana ay sheegeen inay ku sugnaadaan goobaha kolkaasi ay isleeyihiin waa amni, maadaama banaanbaxani la rajaynayo berri inuu halkaasi ka dhaco ay ku dhawaaqeen ama musharaxiinta midowda musharaxiinta Soomaaliyeed. Dowladda Soomaaliya ee waqtigeedu dhamaaday ay ku gacan saydhay, arrintaasina ay ka dhalan karto khilaafaadkaasi uu ka dhalan karo caqabad, rabshado iyo dagaal uu ka dhici karo. Dalka Ingiriiska, wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ingiriiska ayaa sheegtay in ciidamada Eritrea ee ku sugan gobolkaasi Tigray ay qayb ka ah la dagaalanka ciidamada TPLF oo ay garab ku siinayso Eritrea dowladda federaalka ee Ethiopia. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Ingiriiska ayaa tiri suurtagal ma ahan in dalka Eritrea ciidamadiisa militariga ay gudaha Ethiopia ka dagaalamaan. Arrintaasina waa arrin meel kaga dhaca dalka Ethiopia iyo caalamkaba. Waxa uu sheegay Ingiriiska sarkaal u hadlay in ay jiraan barakac iyo dhibab badan iyo gumaad ka dhacay gobolkaasi Tigray, arrintaasina ay qayb ka yihiin dowladda Ethiopia iyo ciidamada Eritrea oo garab siinaya ciidamada Ethiopia ee la dagaalamaya TPLF. Arrintaasi ayaa Ingiriisku maanta waxa uu ugu digay digniintii ugu dambeysay dalkaasi Eritrea inay ka saaraan ciidamada ku sugan halkaasi oo ay ku celiyaan goobihii iyo dalkooda gudihiisa. Khilaafka u dhaxeeya dowladda Suudaan iyo Ethiopia ayaa cirkaas ku sii shareeraya kadib markii ay Khartoum u yeedhay safiirkeedii ku sugnaa dalkaasi Ethiopia. Midowga Afrika ayaa u diray wafdi ballaaran oo la rabo inay waan ka dhex abuuraan labadaasi dal, balse wafdidu maanta ayay gaadheen magaaladaasi Khartoum, kadibna waxaa soo degay caawa sargaalkii dalkan Suudaan u joogay ama ambassadorkii u joogay dalkan Suudaan dalkaasi Ethiopia.